maanta ay taariikhdu tahay April 23 2019 waxaa noo timid diyaaradii ugu horeysay oo African Airways degmada Buulabarte waa horumar cusub oo noo soo kordhay waa wax lagu faano waxay ka qayb qaadanaysaa deganaanta iyo nabadgelyada iyo horumarka iyo dhaqaalaha ay ka qayb qaadanaysaa waa wax wanaagsan awal waxaan haysanay laba diyaarad oo kale sida Galayr iyo Mandeeq tani waa tii saddexaad oo nagu soo kororto xafiiskeena especially ku soo kororto marka waa soo dhaweynayna waa wax aad u wanaagsan dadka magaaladana waa aad u riyaaqsan yihiin tan kale waxaan sameynay qiimo dhimis aad u macaan maadaama diyaaraduhu ay bataan waxa badnaa doono qiimo dhimista marka insha Allah taala macaamiisha waxaan u rajaynaynaa in safar wanaagsan oo si dhib yar oo fudud ay Muqdisho ku gaaraan diyaaradani waxay ka shaqeyn doontaa Muqdisho Buulabarte Beledweyne Buulabarte Muqdisho African Airways marka thank you very much soo dhawaada diyaaradaha kale inta sida Galayr iyo Mandeeq ayagana way isku soo xirmeen marka waa wada shaqeyn doonaa hadii Ilaahay yiraahdo maasantiin thank you very much waxaan aad ugu faraxsanahay maanta oo maalin talaada anigoo rakaabkii kamid ah diyaaradda African Airways baahi badan loo qabay daqiiqadaha aan soo soconay awal waxa loo soo socon jiray degmada Buulabarte hal saac 55 daqiiqo diyaaradda ugu fiican 45 daqiiqo soo jirtay 34 daqiiqo aan ku imaanay African Airways waa diyaarad loo baahan yahay ganacsatada isku hooshay aad u mahadsan sida Macsaro kale Cabdullaahi Caddo kale aad waa inay ka sii wadaan meeshan horumar diyaaradii hore aan lagu dhibtooday African Airways bedeli doonto insha Allah taala rakaabkana waxaan u leeyahay dadkii soo raacaan kamid ahay hal la ogaado daqiiqada ugu yar ku keenaysaa waana inaad guriga joogtid iyo inaad sharitada jiifsid ma kala aqoonsanaysid wax qayli ma laha waa raaxo waa diyaar la yaqaan African Airways waa caan ku laga wada yaqaan ma wala sideen African Airways Buulabarte imaanayso oo degmayso aadaysa ma way ugu jiro saaki markaan diyaar soo fulanaya African Airways waxa Djibouti ma u socota Kenya ma u socota sidaayo ila ma waxa ogaa marka dambe African Airways dad badan inay ka shaqeeya keenay baahi badan loo qabay baahidaasna waa laga baxay insha Allah taala aadan uma santii dadkii ka soo shaqeeyay sida Macsaro kale sida Cabdullaahi Caddo kale sida Umar aadan uma santii ma sha Allah salaam ya Rahmaan Rahiim waxaan maanta u fadhinaa oo aan soo dhaweynaynaa shirkadda cusub ee duulimaadyada ee ku soo biirtay shirkadii hore u shaqeyn jiray degmada Buulabarte shirkadaas oo ah African Airways waa soo dhaweynaynaa wax badan oo baahi duulimaad ayaa degmadan ka jirto waa soo dhaweynaynaa magaalada dadka ku nool waxa waaye inay diyaarada u soo bataan waa loo baahan yahay waxaan dhacay qiimo aad iyo aad u badan ayaa maaragtay degmada looga raaci jiray waxaan rabnaa in maaragtay marka baahidaas duulimaad la daboolo dadka awoodooda la fiiriyo shirkadana ay si caadi u shaqeystaan mar koowaad mar labaad mar saddexaad shirkadda African Airways waa soo dhaweynaynaa gacmo furan ku soo dhaweynaynaa waxaan u mahad celinaynaa dadkii ka soo shaqeeyay in shirkadda Airways ay degmada timaado والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبشو أي تهاي سدح يلا باتكي بش أفراد لبا كنت طبعا إيه سجالك وعن سؤال دوينا أفريكان إيرويز أو كوسو بيرتي دقمة بولابرته هرانا عنو هاي سنة لبا ديارد غالير يا ماندق taas waxay ku tusaysaa bulshadu baahida ay u qabtay diyaaradaha anaga waa xirannahay magaalo xirannahay sidaas la adligeed haddii hadda dhulkii la mari waayo cirka in la maro waa lagu qasban yahay marka saasaan u soo dhaweynaynaa ilaahay mahadiis waa in diyaaraduhu ay noo bataan qiimo jaban aan ku raacno saasaan ku soo dhaweynaynaa anagu haddaan reer Buulabarte nahay bulshada wax u dana waa soo dhaweynaynaa waxaa mahad ah kulankan maanta aan ku kulannay meeshan oo ah shirkadda African Air farxadda koowaad waxa ay tahay marka koowaad dhalinyarada deegaanka oo hal abuur sameeyeen inay abuuraan shirkado diyaaradeed oo ma aragtay duulimaadyo ka sameeyo dalka gudihiisa iskuna xiro gobolka Hiiraan iyo ma aragtay gobolada kale marka farxaddaas weyn waxaan rabnaa inay nooga dambayso haddii Ilaahay raali ka dhigo in ay sameeyaan duulimaadyo continental ah oo Hiiraan intay diyaaradaha ka qaadaan dadka ay geeyaan Europe Carabta iyo Afrika meelaheeda kale oo dhan
marka waxaa kaleeto aan rajaynaynaa shirkaddan la yidhaaho African Airways shirkaddan diyaaradaha African Airways iyo raggii hal abuuray waxaan rabnaa company private ah oo haddana la yidhaaho Bulay Airways inay abuuraan oo ay sameeyaan diyaarado gaar ay u leedahay degmada Bulay iyo shirkadaheeda oo markaasna ay dowladda u sameeyaan viisooyin keenaan waxyaabo badan keenaan cargo badan ay sameeyaan waa rajaynaynaa waxaa kaleeto aan rajaynaynaa oo niyad fiican ah hal abuurka noocaas ah oo aan isdhihi karo waxaa ka dambeey kara xataa in la sameeyo dhalinyaro pilotya oo la tababaro dhalinyarada maanta maanaha yacniga meelaha u fadhido oo aqoontoodii ay ku baaqanayso mustaqbalkoodii ay ku dhumayaan in ay noqdaan markaa shirkadda macsaro iyo ay sameeyeen oo African Airways dugsiga tababarka pilotyada iyo soo helidda diyaarad khaas oo ah degmada Bulburte inay sameeyaan taasaan ka rajaynaynaa waxaan leeyahay ilaahay ka dhigo mid lagu guuleysto oo maaragtay tayo iyo taran horumar intaba yeelato bismillaahir rahmaanir rahiim maanta oo talaado ah ay bishu tahay 23 bishii afraad 2019 waxaan aeroboortka Bulburte ku soo dhaweynaynaa diyaaradda African Airways diyaaraddaas oo ah diyaaradaas oo baahi badan u qabnay reer Bulburte runtii aad hore waxaan u haasanay diyaaradda la yiraahdo Galayr iyo diyaaradda la yiraahdo Maandeeq diyaaradana waa diyaaradii saddexaad oo lagu soo biirto aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaa reer Bulburte daanahay waana baahi badan u qabnaa maadaama uu dhulku naga xiran yahay insha Allah taala hawada inay noo badato waa rajaynaynaa dad Allah dadkii ka shaqeeyay iyo dadkii ka soo abaabulay iyo dadkii juhdi gelinay haddana ummadda reer Bulburte aad iyo aad ayaan u mahadcelinaynaa waana soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo wada shaqeyn wacan waana baahi ay bulshada reer Bulburte u qabtay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin maanta oo ah maalin talaado ah ay taariikhdana ku beegan tahay 23 bishii afraad 2019 waxaa degmada Bulburte noogu soo biiray shirkad cusub oo la dhahayo African Airways Bulburte waa magaalo go'doon ah ha ahaato hadoo la ku run yahay shirkado kale ayaa hore ugu soo shaqeey jiray shirkaddan waa shirkadii hadoo la ku run yahay saddexaad waxaa hore ugu shaqeey jiray sida Galayr oo wax qabad fiican ka soo qabatay degmada Bulburte iyo diyaaradda Maandeeq ha ahaato shirkaddan waa shirkadii saddexaad African Airways baahi badan ayay ummadda Soomaaliya diyaaradihii meel qaas ah ku jiraan waaye wadanka Soomaaliya in badan oo fara badan ayay ka shaqeysay alxamdulillah maanta ay taariikhda ay tahay 23kii ayay Bulburte ku soo bilowday safarkeedii koobaad aad ayaan u soo dhaweynaynaa hambalyo waxaan rabnaa insha Allah madaxdii ugu sareyso diyaaradda African Airways ee degmada Bulburte waxaan rabnaa insha Allah in dadweynaha degan degmada Bulburte ay heli karaan safar raaxo leh iyo hadoo la ku run yahay dhammaan waxaan faraynaa dadweynaha degan degmada Bulburte iyo agagaarkeeda inay shirkadaas African Airways maalinta talaadada ay ku balan qaaday inay soo degto maalmo kale oo dheeran ay ku soo diri doonto gadaal baan ka soo sheegi doonaa hambalyo soo dhawaada reer Bulburte iyo dhammaan waxaan u mahadcelinaynaa shirkadayna qaaska ah African Airways madaxdoodii juhdigaas iyo naga aqbalay baahidaas Bulburte ka jirta nala daboolay nala qaatay aad iyo aad u soo dhaweynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh